hal mid ah su'aal qabaa oo igana ah mataqaanaa codsi walaalnimo iyo saaxiibtinimo mataqaanaa ninkaas adiga ninka la yiraahdo Ayub Kaarle inaan mataqaanaa isku keeno dad awal saaxiibo oo walaala ahaydeen xoogaa yar jaafaajir qiyar oo waxba eena inaan dhaxmartay haddana inaan isku keeno oo mataqaanaa anika ahaanteeda sharma ahaan aan isku meel isla qosolno mataqaanaa dad walaalo maadaama yahay dal kale aad joogno marka ma laga yaabaa ninka la yiraahdo kiisii walaalkii inaan ninkaas mataqaanaa si walaalnimo ah maadaama wax oo rag dhaxmaray wax waliga dhaxmari jir kulli dakanan inaan dhaxmarin dhiigna inaan kama dhaxmarin waxay rag ku kala joogaan inaan dhaxmarin hadal way waxa inaan dhaxmaray isku meel aan inta imaano aan ka wada qosolno oo mataqaanaa isku garab anoo ka soo muuqano dadka in arkaan laga yaabaa asad xaaji waa isqabanay waa dhex taagnaa waa igu dhignaay nin kala isqabanay waa dhex taagnaa waa igu dhignaay sow ma keenayso micno mar kasta ninkan inta loo tago anna la ii tago la dhaho kaalay heshiiya wax macnaa ma keenayso horaa waxaa u dhacday public inta la suukaaya keenay sidii idinka hadda ay rabtiin inaad samaysaan oo la yiri ninka cafi asna la yiri annagoo is cafinay haddana waa kalaan sow aniga hadda horta macno ma ii keenayso oo maanta ninkaas nin walaalo waaye anigu ma haysto dabcan asna ima haysto qurbaan wada joognaa waxna soo kaaya xiran meesha ma yaalaan waxna soo kaaya keenon isku daba gagalna meesha ma taalo maanta ma dhahayo ninkaas youtuber waa shaqadeedu ugu haystaa anna asna youtuber waa shaqadiisa ku haystaa yacni macna ma soo kordhinayso taa markii laga soo tagana tookadan labaad markii aan ishaynay yacni darajooyinka ama meelaha uu isagu gaaray aniga ma gaarin lil balil waa sax ninkaas waa soo qabtay waxa waa iska iri oo anigu tabliiq ma ahayn afkayga waxa waan sheegay laakiinse markii la fiiriyo aniga isaga waxaan ku iri asaan public ahaan ugu iri oo aniga dabeecadba uma lihi mana liigu yaqaano intaan meel soo fariisto inaan waalid caayo qabiilna caayo intiina meesha saaran sharma boy isma ib lil balil iyo shacabkana daawanaya haddii la soo helo CK oo qof ay isaayaan intuu usoo fariistay hooyadii ama aabihii ama qabiilkiisa gaaray wax allaala waxa igu xukuntaana sameynaa wax allaala waxa igu xukuntaan aan sameynaa marka midaa jirto midaan aniga hadda u qaadanayn ninkaas in aan social media dambe aan maaragtay isku sii dhex wadwadano ama ay dhacdo midaan u qaadanayna waxay tahay anigu isaga waxaan iri bareefada waa wacay asa bareefad aa iri muhiim ma hadda inaan ka sheego laakiin isagu intuu soo fariistay ayuu waalidiinteeda iyo qoomiyadda hooyaday Allah u naxariistay in ka soo jeedo ayuu si public ah ugu gafay aniga qoomiyaddu ka soo jeedo iyo waalidiintiisa intaan public soo fariistay ugu ma gafin there is no way laakiin dad kale u gaftaa jira إيشك هداك كنتد لين بليلو هداك كنتد علام كل جنا سعد الله قبل أبو هداك كنتد CK أو قومية أما قبيل أوقفي والله وما تصور حكومات هل من أخبار تانية دعا كتير كذا بهنا على هذا يعدي بي حل ما ربتين بس حل ما ربتين هدو أيوب كارلو هدو CK بابلي كورة ليستا Ayub Kaarle hadduu CK public ku raali geliyo ani ma rabi hadayna waxa idin dhahay shala waxaasa la sameeyay waxa ka fiican berito waxa la qaban karo oo sidee berito ila ragga heshiisii karna ka wanaagsan hadii la dhaho shala waxa suubiyay CK waxa laga yaabaa Ayub Kaarle inuu ilmihiisa u gafay inuu marwadiisa u gafay waxyaabo inuu suubiya laga yaabaa asagana inuu CK waaridkii dhalay oo xitaa qaar kamid ah aysan nooleen inuu u gafaa laga yaabaa muhiimadda hadda maxaa waa marka muhiimaddu waxa waaye Ayub Kaarle hadduu public soo fadhiisto oo public ka raali geliyo CK diyaar buu u yahay inuu asnaga public ka raali geliyo Ayub Kaarle horta muhiimadda أبو همر إني كان سكاي دحبها ليل بليلو waxa ii keentaa ninka aad hadda ka hadlayso meel aan public aniga ugu gafayo ama waalidiintiisa ama cirdigiisa ama asaga ama meeshu ka soo jeedo bal waxaad ii tilmaantaa clip cadeynaya aniga inaan public ninka ugu gafay miishay kartaa meel u raasado waxa ku dhahay hadduu public kugu raali geliyo adigu diyaar ma u tahay ina public war aniga si raali gelin ana raali gelin ugu ma baahniyan ku iriyo yani dacwo ma qabi aniga video ma soo raadinayo firi the reason a video soo raadinayo waxa waaye aniga dacwo ma qabi
aniga dacwo ma qabi aniga waxaan rabaa laba nin oo rag ah inaan heshiisiino ani sharma boyana hadalka keenay muhiimadda ku weydiiyey waxa waaye haddii public aniga walaalkay ku jecel aniga waxaas kula hadlaa hadalka ku dhahayo ma dhihi kari Ayub Carlo adiga isku haleena ku dhaha walaalkay taw ku jecel waa ku cisho karaa aan ku cisho waxaan ku dhaha walaalka isku haleen hadda ay dhaysid erayga aad tiri publiga ugu gaftay asiga dabagay hadda ابو هذا ببلي او كجر او قفت فيري جايز سيكي كان هذا الكبريت او كبري هالمر نوع هذا النوع كان هذا المهمه waxaa liilo hal mar aan hadlo hadalka ani ninka aan u dhahay siikay wuxuu على سؤال دول صار muuda galaya codso hal mar hadla siikay aniga marka hadalkan keesanayo waxa kaaga bilaabay dakana idimada dhaxmalin cidna iska meeyada dilin wax walba aad qabtid inaan la khadid ani taas waa codsigaygu wuxuu ahaa ma fahamtay wax walba oo idin soo dhaxmaray caay walba aascaysay wax walba idin dhaxmaray inaan la khadid macnaa inaan la kartid baa codsigaygu ahaa taas un baa ku weydiiyay ma fahamtay wax idin soo dhaxmaray wuxuu ku dhahay waxa is dhahdeen anything aniga asiga laftirkiis waa la sheekaystay oo uu ii sheegay macnaha maca awlaadeedu u gafoo dhahay marka ama life oo dadka hortooda kugu caayo ama dadka ma taqaana bareefad ku caay laakiin labadaba way xanuun badan tahay ma fahamtay because adi ma dhalin cunigaas ma ani hada idhaad maanta adi ma dhalin ilmahaas adi ma dhalin Cabdinaasir waa lagu dhale hada idhaadid wax ka xanuun badan ma lahan hadana nin rago waxa saliqi kara ahay ma fahamtay because bini aadana taa waa igu khaldami kartaa waxa rabtid ay dhihi kartaa adoo inaad rabtid inaad iga xanaajisid xaaladda markaas aad ku jirtaa fiirinaya ma fahamtay hadalkii ma sii tixraacay ani meesha u socdo hadalkii waxaas iyo waxba igama galin laakiin xaaladda markaas aa igu tiri waxna dhaxmaray meesha aad taagan tahay bis baan ku qiimeynaya ma fahamtay waana cunaya waxaas oo dhan markii libaaxayga waxaas oo dhan hadda inaa adi waxaan kaaga codsadaa wixii taa waxaas oo dhan nin liq kara inaad tahay bis si walaalnimo sharaf la asigan ma kaliya kaama ana bilaabo marka hore asaa u soo tagay si degan anoo isla fadhino si degan uu yiri ninkaas walaalkii waxba isku marqabno oo marka bis taas arinkaas umbu igu sameeyay dhahaneeyo aan waxaan dhahay waa arkay laafkaaga soo galayso waan daawanaya siikay ku caynaysa asigana marka wuxuu dhahay bas diyaar waa wax dhib aniga ma qabo dhahay ma fahamtay laakiin hadda adiga waxa soo dhan inaad liqi kartid oo aad tu fikirtid baan ka codsada ma ahan inuu waqtiga soo fariisto inuu ku raali geliyo muhiim ma hadda isku imaantaa guys oo aan soo horta walaalkay siikay dhinaca garabkaaga ka soo muuqdo wixii uu shalay ku dhahay saasuuba uma taqaana oo cafis ku weydiis dadkan oo ku tusay ma fahamtay guys عفسك واحد بكم يمسن guys انت اللي دلو عادي لو على كل خادنا على عفناي it's just my كان يدحمري لبن انه رجعتين waxa ugu fudud la sameyn karno waa wax aad u fudud in la iscafiyo aad u fudud ismaaciil biiligeeso hal mar idin sheegaa walaalkay siikay horta aniga waxyaabaha gobol marka dhahayo dadka ilaa mid ah ma fahamtay aniguna waxa ahay qof bini aadan oo qofki ii dhow inuu qof kale ku xad gudbana ma jecli qofki ii dhowna lagu xad gudba ma jecli hadalka siikay haday aan dhahay dada u gaftay aniga ragatanimada waxa leeyahay inta hadeertan anigu inta fadhiya aan waxa ku leeyahay walaalkay siikay hadalkan ku dhahay haday dada ku gafay ka raali noqo 100% ما it's okay bro انا waxaan ku sheegay bas hadda saaxiiso abo dhageeso hadda ma dhahdo is okay why because public ku raali galiyay waxa ku dhaca raali noqo is okay yaa dhahday okay haddii ninkaas to public soo fadhiisto oo public ugu raali galiyo oo ku dhaho walaalkeeyo waan ka qaldamay qalada ka galay familkaaga u gafay dadka ku dhawa u gafay cid kasto ku taqaana u gafay iga raali noqo adigu diyaar ma u tahay ina public ku raali galiso ha ama may walaalka mid iga dhigaysa leel balil neew sharmaako horta saaxiibkay intaan in ka badan waa maaragtay isku leenahay inaan iska maqalno mana tihid maanta qof aan maaragtay ku diidi karaa ama ku qaadan karin wuxuu iga codsado waxa codsatayna wax wanaagsan waay siikay maqal ma jira la muddo dhaxalooda maqal ma jira ما جرى قف عان أو أبكي أسكتين أو أنت عفس وجيتنا سيجرها المقام كله أنا قف عان أو أنا عفس أو جيتنا أسكتنا ها إسماعيل حاج أي كوسو عمرك
ها نكاس walaalkay waaye عليكم السلام walaalkay nin macaan walaalkay waaye شرب عود تفتخر شرب عود تفتخر okay okay nin walaalkay waaye sababta u dhahayana macnaheedu wax kale ma aha waxa waaye maadaama uusan asaga hadda social media ku jirin oo hadda social media ka baxay waxaa leeyahay iscafina walaalkay waxaan adduunyo waaye hadduu maanta asaga dhinto ani waa shallaynayaa haddii maanta aniga aad dhintana asoo caloosha wax igu haayo asna wuu shallaynaa social mediahii isku kaaya keenay inaa isqabanana maanta ma jiro oo asi kuma jiro berina inaan aniga ku jirnaa laga yaabaa waxaan adduunyo waaye marka iscafinaan dheelahay ninkaa walaalkay maasha allah sharmaake waxaa waaye sharma boy iyo dhammaan wiilasha meega la saarnaay lifeka aad bay u mahadsan yihiin wax wanaagsan ay ka shaqeeyeen in la iscafiyo ayaa fiican cafiska aad iyo aad u muhiim u yahay habeen walba waxaa fiican markaa seexanaysid adoo calooshaada saafi kuu tahay dhammaan walaalahaaga aad cafisay inaad seexato marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa walaalaheen inay maaragtay si nabada ay ku heshiiyaan khilaaf dambana oo soo kala dhexgelin sidoo kaleeto CK waa qof qalbi wanaagsan arkayseen Ismaaciil ayuu cafis weydiistay marka waxaa waaye qofku bini'aadanka waxaa loo baahan yahay especially waxaa waaye dumarka meeshaas ku fiicnaan laakiin ragga ku fiican yihiin inuu qaladkiisa qaato oo maaragtay ceeb ma ahan taas ma fahanteen marka dad u maleynay ceebta qaladkaaga hadaa qaadato waxaa waaye maasha allah qof oo la janaha tahay marka waxaan leenahay walaalaheen ilaahay nabad maaragtay dhexdooda ha dhigo maslaxa khayr qabta ilaahay dhexdooda ha dhigo horena ha u socdaano dee waxaa waaye ayagaba dhalinyaro badan waxay u yihiin inspiration u yihiin ma fahanteen dad badan oo ku dayanaya jiro marka ina maanta isqa qabsadaan wax wanaagsan ma ahan haddii ay iscafiyaan dhalinyaradii baa ayagana iscafinayo oo maaragtay isi soo dhaweynayo marka waa kaas hadda walaalaha adduunyada waxaa waaye laba maalin waaye inaa walaalkaaga adduunka walaal lagu yahay si wanaagsan oo maaragtay sharaf la iskula joogo social mediahaas hadday noqoto dal qurbahana waa dhib badan yahay waa shida badan yahay ilaahay nagu ammaansado ayagana meesha joogaan allah ku ammaansado dhammaan walaalahayga meel walba adduunka ka joogtiin ilaahay idinku ammaansado intaa muuqaal kaleeta aan ku kulmeyno waa walaashiin jiijo idin leh allah macaka fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabay muuqaalka ku xigo oo halkan soo kori doono insha allah ii daawada ina laa gareeya aada u mahadsantiin bye